عالم كودا ومال عانو عدل نسي عيدا عيدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا المقعد السودان. شو ما بيبي؟ شو اللي بيبي؟ يا هل كان سلام يسا. دمان وحق السلام على والدكيga دمان hooyaday aabahayga iyo walaalahayga dhamaan iyo inta muslimiinta aan ka salaamahay ciid wanaagsan Allah إن شاء الله. waxaa ku weydiinaya ciidan waxay ciidaha kala duwan tahay. walaa ciidan kal iyo laab ciidaha kala iga duwan tahay because ari weyn ay qalin guriga ii joogo. waxaa ku weydiinaa ciidan haddii loo ciidul carafa ciidul adxa ciidee waa. ciid soonka waa markii la soomka bacdi le waa. okay halkan yaad ka salaamaysaa السلام على المسلمين تدم كل عام وانتم بخير عيد ونكسب دمانتود وحي المسلمين ودين كل جميل okay ma jiraa si qof qaas ah ku dhow aad salaamayso والله ها فمل كيغا اهل كيغا اصحابتو دم دمانتود والسلام يا كون كان فوقنا هذول يكون ودا جوجنا waxaan lahay ciid wanaagsan dhammaantiin okay ka gudoonay mid xigta extada maxalkan fariin uu dhaafaysaa horta waxa kale ah horta su'aasha ay u keedisay laakiin arinta jirta waxay tahay waxa weey waa kullayba waa khayr origina dabcan di isdeesan qof walba isdeeya taas ceeb maaha laakiin maxaad u dhaafaysaa message de maxaa u dhaafi lahaa warba kama haye dabcan laga yaabo inay ka dhaxdaa YouTube laga yaabaa laakiin waa salaamaya isku dirka oo dinta joojaadi ayo marka waxaan jeclaan lahaa magaca saddexan inaad ku bilowdo horta magacayga jaamac Allah ummadda dhammaan wada salaam assalaamu calaykum waraxmatullaah ciid mubaarak ale okay ma jiraa si qof ku dhow qaas aan salaan u diras ummadda dhan waa isku wada mid kuwa walaalahay iyo kuwa kale taba okay wax yar kula kaftamo dumaashana iga xanaaqin qofti kugu horeysay extaada maxaa message dhaafaysaa والله message ma haya ba waxaan jeclaanahay magacaaga saddexan inaad nagu hormariso magacayga waa Axmed Sahl Cabdisalaan Barre okay halkan yaad ka salaamaysaa halkani horta ummadda Soomaaliyeed dhamaan waan u hambalyeynaa tahniyad baan halka uga diray ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair Soomaali weyn meel walba ay joogdo iyo dhamaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair tan kale oo ku daray waxaan leeyahay waa maalin Carafa maanta waxa waaye waa maalintii Ilaahay la xusi lahaa xusitaanka Ilaahay la badin lahaa teeda labaad Ilaahay waxa ka barinaynaa inuu wadankeena xasiliyo oo amaan oo qulubteena Ilaahay inuu isku keeno qulubta Soomaaliyeed Ilaahay inuu isku furo oo wadanka Ilaahay inuu noo xasiliyo baan halkan uga diray ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaya amiin insha Allah inuu hagaagi doona ma jiraa si qof ku dhow qaas aad salaamayso wallahi way jiraan dhammaan waxa salaama eheladeyda qaraabadeyda meel walba joogaan ummadda muslimiinta meel walba joogaan halkan baa salaan uga diraya oo waxa salaamaya kale yaani ehelkayga dadkii dhow iyo saaxiibeyga oo maanta meesha iskula ciidnay kullu caam wa antum bikhair baa leeyahay okay qof ku dhow dhammaan waa wada salaantay fariin mise salaan uma dhaafisin qoftaada exta maya ex waxa way fariin uma dhaafay laakiin waxa leeyahay insha Allah waxa ilaahay tawfiiqdana waafajiyo ayo jeclaan lahay magacaaga saddexan inaad ku bilowdid adigoo raali ah ما شاء الله magacaygu waa Jamaal Xuseen Muuse Jamaal Jeceelow marka waxa ku faraxsanahay nin iga gaawino maanta wareysado farxad adduunka waa farxad lagu sii daray waana adoo malab cunaay ku qoweysato waa okay halkan si qaas ah yaad salaan ugu diraysaa halkan si qaas ah waxa salaan ugu diraya dadkii adduunkan i keenay hooyo macaan iyo aabo macaan waa salaama kurwan loof waxa waa mid saddexna waa jirtay mina magaceeda sheeg waxa u maleeyaa okay dhimal hasheyn magaceeda dabcan waa isdareysan tahay su'aal kale ku wada galiya Soomaali ciidooyinka lagu ciidi jiray iyo halkan qurbaha aad joogto Kenya maxaa different u dhaxaysa leedahay waxa different u dhaxaysa horta runta fiican runtan Ilaahay ugu jecel Soomaali ma joogtaa salaad ma dukatay isla markii abaxay guriga galay bariis saxana cabay laakiin meesha war maqrafana lagu dhiibaa marka Soomaaliya waa faqriga u dhaxayso
agoode ah ku qaado mid labaad Ay. extaada hore qofka kugu hore xariir aad la samaysid maxaa message u dhaafaysaa fariin maxaa u diraysaa horta waxaa waaye hal qof oo magacan darta jecelo waa hooseedaha gelisna allah ku taa marka waxaa waaye sheeg waa salaamaho hagaag waxaa jeclahay magaca saddexaynana ay ugu bilowday magacayga cumar maxamed cali okay halkan yaad ka salaamaysaa halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan inta muslimiinta ah gaar ahaan waxaan salaamayaa walaalaha muslimiinta meel kasta jooga gaar ahaan Soomaaliyeed waxaan leeyahay taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal maanta waa maalin aad u farax badan dadka meelaha kala duwan ay ku soo kala ciidaan ani ciidan la soo dhaafay waxaan ku soo ciiday Mombasa laakiin ciidan way ka duwan tahay wayna ka xamaasad badan tahay inkastoo aan soo koobi karin dareenkayga xamaasadad balse waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel kasta joogaan taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal aad iyo aad baan u salaamayaa okay su'aal ah koydii ciidooyinka Mombasa lagu tukado iyo ciidooyinka halkan Nairobi lagu tukado maxaa faqriga u dhaxeeya wallahi farqi weyn uma dhaxeeyo laakiin yani waa markii ugu horeysaan ku soo ciido Nairobi marka waxaan dareemayaa farxad aad far badan iyo dadka isdhaxgalka marka inkastoo hadda wali ciidan si dhamaanin waxaan rajaynayaa inaan farxad badan ka siiyalo ya aad iyo aad baad u mahadsantahay marka ma jira si qof ku dhow aad u salaamayso aad iyo aad dad aad far badan baan salaamayaa waxaan salaamayaa guud ahaan familkaygaan salaamayaa gaar ahaan waxaan salaamayaa asxaabteyda sida asxaabta kuwa jooga Mombasa kuwa joogaan inta Nairobi iyo kuwa Soomaali joogaan kuwa Baraawe joogaan meelo badan aad iyo aad u salaamayaa okay wax ma noo sheegi kartaa wax oo kugu leeyahay badna aragti Nairobi meel walba niyo waxa igu la yaabka badnaa inaan maalin aan Nairobi maaday marka dhaxan waa jirtay fulaanad ayaan soo gashtay marka habeenkii maan aqoonin fulaanada markaan soo gashtay marka waxaa la dhahay jaakad gasho maya aniga waxa ugu dambeysay kulaalka Nairobi Mombasa saa u booteen habeenkii waxaa arkay anoo kagay oo dhaxan la jiro marka saaxiibkii isoo wada meesha iga soo wada okay diyaar qoftii kugu horeysay oo aad xiriir la samaysid halkan maxaa message ugu diraysaa wallaahi qoftaas waxaan leeyahay ma taqaanaa horta qof hadda ka hor qof baan jeclaaday gabadhaas horta la guursaday laakiin gabar hadda ka hor oo aan isbaranay oo marka aan YouTube channelkayga isku baranay oo commentiga igu soo qortay waxaan leeyahay gabadhaasi haddii yacni wax kala jiraan dhimala commentiga igu soo badi أنا كومنت إنه أخلصنا إن شاء الله. أيوة. كومنت كلا سو حريرني كان. إن شاء الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك كلية هاي. شعن بيبي سبب الشدة كويا قنان. وحن شعلان الله هاي. إنات. مقعد سدحنا وبلا. مقعد وشعن بيبي. عيدا هذا أفرح سنة بنتي. وأوجا هنا فرح سنة أنا قدنا وضو فرح سنة عيدا يا هالكن كسلام يسا. وهالكن كسلام يا. أصحابتي دمان ملول بيجوغان أنت جعلها والدين تدي ولا لا شعني هذا قرنتك هالليسي قفكاك كوجو الرجل إكس كاي محفرين أو دراسة إيه سيدنا كودور إسكوبراتين إكس إيو لاست وحلا مجرمو وهذا فيري سمانة قديس وحمد كبراتها هاي وأوجاتاس بس بيلها ما شاء الله waxaa ku weydiinaa halkan iyo salaamaysa dhammaan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan kuwa jooga Kenya iyo kuwa ku nool Soomaaliya iyo kuwa ku nool dhulka iyo Ethiopia waxaan leeyahay meel walba ay joogaan kullu aamin wa antum bikhair ciid wanaagsan ciidan ciideeda Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa bash iyo barwaaqo iyo amaan inuu nagu waariyo sidoo kale waxaan u tahniyadeynayaa ana salaamayaana bahda balanbaalis meel walba ay joogaan asxaabtayda iyo qaraabadayda iyo ehladayda iyo arxankayga gaar ahaan hooyadayn macaantana iyadana waan salaamayaa adigana waan ku salaamayaa masha Allah waxaan ku weydiinaa maadaama dhowr ciidood aad soo ciiday ciidan ciidihii kale oo la soo dhaafay maxay kala duwan tahay runtii xalay oo kale mar aan gaariga ku galayay islii xaafadda islii ilaa iyo waqti dambe ayay soo jeedeen oo runtii xataa meel aan maraan waaye waxaa socday dadyo badan oo runtii ka suuqaysanaya meesha ciidan waxay uga duwan tahay ciidihii kale dabcan jawiga sida arkaysaan jawi roobaad ma aha waa jawi caadi oo runtii oo aad iyo aad u qurux badan caruurihii ayaa wada socday dumarkii xataa waxaa arkaysaa dad cuuryaamiina oo gawaari lagu waday macnaha waxaa moodaa ciidan aad iyo
aad loogu diyaar garoobay shacabka Soomaaliyeed runtii dareen jawi ciideed iyo farxad inay maaragtay dhibaato walba oo ay jirto in maaragtay ay farxadii ay ka qayb qaato iyadana ma aysan u diidin waan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaanna mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan leeyahay kullu caamin wa antum bikhayr taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.